بسم الله الصلاة والسلام والأتمان الدائمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سدح صفو حدي أديق لغا هلو بلشدا أد كل حنوش هدي لغا هلو كميونيتي قد دغن هدي لغا هلو ودنكاس iyo ummadaas iyo qoomka halka degan hadii laga helo gaar ahaan hadii adiga laga helo saddexdaas sifo باذن الله الكريم ولكن قال احتونا والله يسا باذن الله الكريم ummadaas خير iyo barwaaqo ayuu ilaahay siinaya. قال تعالى اولا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. walaalkayga qaaliga walaashida quruxda badan sifaadka asaga ah insaanka ama qofka bini aadamka waxa qiyam u yeela waxa bedela waxa sharaf u yeela waxa inuu bini aadan saxa insaan naxariis badan oo sharaf la ka dhiga waa sifaadka isagu isku dheeho waa sifaadka uu barto waa tilmaamaha quruxda badan oo noloshiisa ku dhadhajiyo ku dhadhakabiyo si uu markaasi uu aakhir u helo samaraadkeeda iyo wanaageeda. waxaa la wariyay qisadan bad ka dhaxlaysa saddex sifo ahdigii Umar bin Khattab radiyallahu anhu xilligii Umar bin Khattab ayaa waxa la yiri nin ayaa wuxuu lahaan jiray beerta iyada ah geed aad u qurux badan oo midho badan dhalay ayaa wuxuu ku yaalay wadada dhinaceeda at the same time beertu ku dhex yaalay geedku marka wuxuu ku soo leexsamay wadada midho badan uu dhalay marka maalmaha kamida ayaa nin geel wata geelay ayaa meeshii soo maraa la yiri markuu soo maray ayaa geelii mid kamida ayaa waxa la yiri waxay cuneen ama geeliya waxay cuneen geedkii midhaha badnaa bay midhihii ka boobeen. ninba inta ku soo tacbay oo daalay oo rabo inuu suuqa geysto geelii baa ku yaacay geelii baa ku diday geedkii waa mariyeen. ninkii beerta lahaa dhagax weyn ha soo qaato waaga yaraaba waxa marka magaalooyinka markay geela la keeno yaan geela daba urjin waxa geelo gulaalo gumburo lax baribaan waa qaajir markaas dhagax baan ku tuur jirnaa marka dhagax marka ku turto waxaan la oran jiray hadda halka uga dhufto dhagta hoostiisa geela waa dhimanaya ha ku dhufeen lugaha meelaha kaga dhufay ciyarku nagu oran jireen. ninkani marka dhagax buu soo qaatayo geelkii buu ku soo tuuray marka geelii markuu madaxa dhagaxii kaga dhacay hashii way dhacdo way dhimatay. ninkii hasha lahaa waa taqaanaan taariikhda Soomaalida hasha qaar baa ragga marka usha ay ku dhuftaan ninka ku dhuftay way badilaanba Soomaalida dhaqanka way leedahay. ninkii geela lahaa hashiisii markuu arkay oo dhacday oo dhimatay ninkii beerta lahaa ayuu u tagay uu dilay calooshu ka soo tuuray baaltu riya waa xilligii Umar bin Khattab radiyallahu anhu. halka nin baa ku dhintay ninkii baa la soo qabtay maxkamadda la saaray qisaas baa lagu xukumay yaa xukumay ahdiga Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa qisaasanaya ninka la dilay wiilkiisii baa la diiday iskale qisaasada iskale caafiskana iskale wiilkii wuxuu go'aansaday in aabihi ninkii dilaysna uu dilo iyadoo halkii la joogo ayaa ninkii tiirka la keenay la dilayay ee mataqaanay ninka dilay tiirka la keenay markii tiirka loo sii waday ayuu areygan yiri wuxuu yiri yaa amiir almu'miniin anigu wuxuu yiri way dilaysaan waan arkaa xaq badna u leedahay in la dilo laakiin biiri meel saxaraha oo bannaan oo duur oo cidla ah ayaa waxaan ku aasay biiri xoolo ay dad agoona ii dhibteen ayaal agoona ayaan ku soo aasay cid kale oo meeshii garanaysana malaha haddaad idishaan agoontaasi xoolahoodii way dayacmaysaa ee hal isii daayo aan xoolaha u tago aan soo foqo agoontii aan siiyo anna marka aan iskeeno ajiib waa waxa maanta loo yaqaano isii daayo damiin igu sii daayo pound hal iga dhigo sida hadda ninkii dilay George Floyd oo kale poundka $1 million laga dhigay hadda uu soo xamanan ku joogay marka wuxuu yiri aniga la isii daayo xoola ninka pound ma haysto laga dhigo ma haysto yani damiin ma haysto markaas liiriya damiinka noqonaya magaaladii buu saa u eegay wax damiinka noqdo ayuu waay markaasuu afka furtay war wax damiin iga noqonaya ma jira war waan soo noqoni war ana iskeeniya damiin iga noqonaya markaas waxa la yiraahdaa أبو ذر الغفاري رضي الله عنه صحابي قال لي هذا أيها حوري أنا دمين كنقونية أرض بح ماشي تق أقوانت حلو صباحي صار نقو سدح بريبرو لينك هاليسيو عمر بن الخطاب أوحو وديا أبو ذر الغفاري أبو ذر ونينك ما يعتقانا مركز سوري ما أقانا يا أمير المؤمنين وما أكتي هدو صار نقو بوس كيس اللي قلنا يا أذيك أو قصاص أذيك وقول عيسو ها يا أمير المؤمنين نينك هاليسي دايو نينكي بابا حاليل أبو ذر halkan uu jooga ninkii baa maqnaaday maalintii koobaad maalintii labaad buu maqnaaday maalintii saddexaad ee ballantu ahayd inuu maghribka soo noqdo ayaa ma artay casarkii markii la gaaray ninka ma soo socdo Abu Dharr al-Ghafari waa iskeenay meeshii
tiirkiibuu iskeenay ilaa ninkii waa u gambiyey masa socdee tiirkiibuu iskeenay waa soo diyaariyey in isna booskii qisaasta la geliyo wiilkan qisaasta iskale aabihii la dala meeshuu taagan yaho mindidii buu soo fiirsanayaa iyo wixii qisaasta ahaa markii ay meeshii xilligii maqribkii la gaaray oo Abu Dharr in laga takhaluso ay taagan tahay ayaa wiilkii raaba wuxuu yiri cafawtu canhu waan iska cafiyey aniga waan ka tanaasulay aabahay waan cafiyey markuu intaa yiri daqiiqada kadib odaygii baa soo istaagay odaygii ribaadiyaha ah ee agoontiisii soo kala dabaray ordaya waa kana jag isna meeshii buu soo istaagay ninkana waa la cafiyey markii la cafiyey ayaa amiirul mu'miniin baa la hadlay ninkii wuxuu ku yiri waryaahe geel beele maxaa ku keenay waba iska carari kartay meesha dil baa ka soo horeeyay why are you here maxaad u timid maxaa inta ku keenay markaas wuxuu yiri yaa amiirul mu'miniin waxa aan ka xishooday oo idibay الوفاء با أمدا كل حيرة إن يراها قلة الوفاء إن بلنت اللي أوفيه أيها برشاد لقد نحواي سي الله أرن أو برشاد خيرك أقول يرانين بان السكاني أو صفات كقول روح ذا بدن وصل أمدا وقد نحبابين that's why أنت وجوجا وانك اللي دلي قيم كاسن إلى نيفوري ويل كيرابا لويديه وحالنا أذوق محاد ساء صميسي أو دعاء في سي يا أمير المؤمنين waxa aan qaadi weyday in la dhaho ummadii waxa laga dhaxwaa alcafu in la iscafiyo baan ninkan u cafiyay in ummadii laga dhaxwaayo way iscafisay ayaan aniguna u cafiyay Abu Dharr baa la weydiiyay Abu Dharr adiguna maxaad ninkan booskiisa u gashay oo damaanada u qaaday ya amiir almu'miniin waxaan ka cabsaday in la yiraahdo qallatil muru'atu wal 'ata waxaan ka baqay in la yiraahdo sirriigasha umada laga dhaxwaay nin umada dhax taagan oo yaa idamintale war yaa idamin la in laga dhaxwaay magaalo inta la eg qof isagu ugu yaraan sirriigasha leh oo ma taqaana wax aaminaya in umada laga dhaxwaayo ayaan aniguna u sameeyay maanta marka qaar waxaanu aragnaa nin intuu hotel soo galay balon buugiisa soo waayay ma fiisa kaarkiisa ama lacagtiisa soo waayay saxan bariisa ka laacay kuloni waxbaan soo ilaabay oo wax aamin la yahay oo la leeyahay qaybta digsidaha laga yaabta lagu meeray kana ma aaminayo kuwii bariiska boobiye baarka ima taqaan hotelka joogayna ma aaminayaan umadu halkaas ay maraysaa maanta waxaad arkaysaa ummado waa hore awow istilay hadda ma ahiya awowgii shanaad isdilay ilaa maanta cadaawad iyo dagaal isku haya dadkii istilay baa la rabay inay iscafiyaan ismaaha in la isku dagaalo aniga awowgaa dilay that's why dagaalku nooga dhaxaya cafis ma jira maanta waxaynu arkaynaa inay muru'adii iyo gobodnimadii iyo sariigashadii ay yaraatay ummaduna waxay qiyam ku yeelataa in ay sifaadka leedahay ku dadaal inaad adigu la timaado qof walba imaqle uu la yimaado saynu u noqono ummad sharaf leh oo qiyam leh oo muru'a leh oo cafis leh oo cataa leh oo wafaa leh oo karam leh insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.